markaan wasiirka ah waxaan tagnay cali masaarkii madaxweynaha maxaa la yiraahdaa madaxweynaha la socday waqtiga farmaajo madaxweynaha waxaan tagnay South Africa madaxweynaha South Africa hadda jooga waxaa la yiraahdaa Ramaphosa wuxuu dhahay sidee baan dhiig Soomaaliyeed ugu talaalaa madowga South Africaanka madowga yagii waxba qabsan laayihiin Soomaalidana qof aan luqadii imaan baa imaanaya South Africa waxa arkaysa soo dukaan furtay oo business sameeyay oo horumar sameeyay say isugu talaal qofka Soomaaliga marka shakhsiyadiisu waa fiican tahay meeshuu tago horumar ka keenaa dalkiina waa ku dayacan yahay wuxuu ugu dayacan yahay dalkii waxa ka maqan dawladnimo iyo maamul wanaag baa ka maqan Kenya markay yimaadaan Soomaalidu iyaga businesskii la wareegay moolkaanay dhisteen ya Soomaaliya kama dhisan karaan waay waa isla Soomaaligi xagga waxaan ka jirin dawladnimo iyo maamul wanaag Soomaalidu waxay tageen Mareykanka waxay galeen baarlamaanka maxalliga Congress-ka waxay noqdeen Canada wasiir ka noqdeen waxay noqdeen maxalliga baarlamaanka ama golayaasha sharci dejinta oo Minnesota ka mid noqdeen iyo kuwa Oregon iyo kuwa Maine iyo meel la mid waay waa isla Soomaalidii East Africa from Kenya to Zambia to Tanzania shidaalka waxa geeyay transportation-ka dad Soomaaliyeed oo business ku madaxweynaha South Sudan baa sidoo kale inta ku gabagabay wuxuu leeyahay Salva Kiir baa yiraahdaa isagana waa u tagnay iyaga dhexdhexaadinayeen wuxuu yiri haddii aysan Soomaali ahaan lahayn dagaalkii sokeeyo South Sudan markay xorriyadda qaateen oo dhexdooda iska laayeen oo nin la yiraahdo Salva Kiir ko madaxweynaha qolo inaga camal aqligeena kale leeyihiin waa dayacan yihiin oo dikal la yiraahdo markuu la dagaalinin Riyaad Mashaar la yiraahdo qolo Nuweer la yiraahdo qolada tirada labaad ku soo xigta markay isdagaaleen wuxuu yiri haddaan Soomaali joogi lahayn waa aqal lahayn kaaja u dhimanay South Sudan baa mushtarkiisa iyo daawadiisa iyo shidaalkiisa iyo kulli waxa keena Soomaaliya keenta qofka Soomaaliya ay markuu tago meel nidaam leh meel dawlad ka jirto meel maamul wanaag ka jiro meel fursad ka jirto dadka bini'aadamku la mid yahay Soomaaliya markuu joogo la kala diyaacay waa shabaab kaaja haysa cudur baa haysa waa qabiil waa isaysanaya markaas tahriib baduhu ku dhimanaya markaas inagu meesha waxaynu la fariisanaynaa oo qabiil baa nala haray saan qabiil lahaydeen it has nothing to do with qabiil umadaha ugu jiro qabiil xikmadu waxa weeye maamul xumaa jirta institutions baan jirin wax kasta waa madaxweynaha ya ma jirto wasaaradda arrimaha dibadda oo shaqeynaysa wasaaradda maaliyadda oo shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka oo shaqeynaysa male madaxweynaha saf loogu jira baarlamaanka madaxweynaha iskale xukuumadda madaxweynaha iskale iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo hagiisa dar ama ha jooga federaalka hadda runta isu sheegayna waxaan ogahay mana aha wax oo madaxweyne gaar ah ku kooban federal government-gana ma gobolada ka jirta ana ogtan oo shaqeyn sidayna ahaanaysaa ilaa aynu bedelo mafaahiimta oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan dawladda inay iyagu leeyihiin oo la dhiso markaa institutions dadku leeyihiin oo madax bannaan marka mustaqbalka Soomaaliya waa fiican yahay ummadaynu la mid noqon karaa sida aynu Kenya ugu fiicannahay Zambia ugu fiicannahay Mareykan ugu fiicannahay xagga ugu fiican haddii aynu samaysano nidaam maxalliga dawladeed oo fiican rule of law institutions shaqeynaya madaxweyne la qaban karo mushaarkii iyo wasiir mushaarkiisa ku hadda koor waxaan yiri madaxda Soomaaliyeed saddex ceebood ay isugu tagtay aqoon xumo awood xumo iyo niyad xumo aqoon xumo waxa weeye and trust me on this igu aaminatan madaxda Soomaaliyeed badankooda dawladnimo fikrad kama haystaan sidaan maanta sharaxayn dawlad iyo xukuumad iyo asaga waajibkiisa dalka ka aadanba ma oga wuxuu haystaa dhaqanka aynu xukuumadda isagu leeyahay saas uu haysta dor wuxuu ku leeyahay gabadhaydu waa muwaadin hadda koora muwaadinimo loo diiday waxaan ku yiri hadda koora waxaan ku yiri madaxweyne gabadhada muwaadinimada qofna uma diidana adaaba muwaadin number 1 ah laakiin gabadhaadu maxay xaq ugu yeelanaysaa inay shaqo hesho aan gabar kale oo Soomaaliyeed helkin meelida laga hadlayo muwaadinimada dadka Soomaaliga waa misiin
ninaan qaraabanahay oo wasiirnimo raadina iibado yiri madaxweynaha maxaa gabadhiisa wax kaba sheegay madaxweynaha waxa uu sheegay isaga yiri gabadhayda muwaadid ka bacdina wuxuu yiri wasiirada qorta dadkiina ka baqeenine kaasa wasiirta soo baday wuxuu yiri 10 ugu horeyso aan qortay qaraabaday ahay dowladnimo shuqulku ma laha waxaas inagina raali baynu ka nahay marka inaga Soomaalidu waxay yiraahdaan ishiisa laga arkaa marka inagu ilaa aynu ogaano awoodeena isaga marka waxa taas tan marka waa aqoon xumo waxa weeye dowladnimadii iyo xiriirka u dhaxeeya institutionska waxay leedahay iyo ninkii dadkii ma oga marka taas waa objective waxa weeye waa jaahilnimo inaysa madaxdiina inay kala mideenaysa tan labaad waxa awood xumo awooddu waxa weeye dalkeena by the way ama gobolada hadda dafalkaate awood ma lihin awooddu laba sibay ku timaadaa human iyo financial inaga lacagna ma lihin international community-ga ina kabtawaani ka sheekeynayay dadkeen hay'adihii dawladana kama shaqeyn karo hadda wax kasto aan sameeyno soo maqlayn deyn cafis hubka qaadin waxa xukuumaddu ku faanaan dhan waxa soo dhan waxa inoo diyaarinayay oo gacantayna hayay World Bank-ga iyo IMF-ka iyo Mareykanka iyo Norway iyo waxaas sharciyada hadda baarlamaanka laga baas gareeyo meelka laga baas gareeyo aqoon-yahano ajnabi ayaa inoo diyaariyay in ka kaalmeynay inaga baarlamaankeenu iska fadhiyaayo badankooda ka hadlaya marka awoodna waa ka dayacanay mid dad iyo mid maalba ka dayacanay marka awood xumana waa haysataa madaxdeena oo lacag badan hadaynu sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo ahaan lahayn malaha waxbaynu kala dejinay tan ugu daran marka labada objective ay tan saddexaadna waxa weeye niyad xumadu waxa weeye anagu dadka qulubtooda kuma jiro walaa nutaaliba ala qulub الناس laakiin marka dhaqankiisa aragtid markii madaxweynihii uu dadkii kala qaybinayo oo kala shahaadayo oo laadkeenayo oo caruurtiisa kontraktiyada siinayo iyo qaraabadiisa maxaa u macnayn kartaa adiga niyad xumo ma ina wax kale ku macnayn kartaa marka ayagii marka madaxdii saas weeye Zahroy dadkii iska qaban lahaa oo ogaan lahaa iyagu inay waxa leeyihiin waa inagii oo malihin awoodi marka isagii marka waa yaa ka celinaya mustaqbalka Soomaaliya xagee weeye mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay inaan helo dawladeena oo inoo madax banaan oo si ku madax banaan karta in dadkuna raali ka yahay dalkoo dhan ay ka tirsan si kale ugama tarin karto dalkoo dhan madax banaanay qaranimada ma soo karto hadii aan dalka joogo dhawi raali ka ahay marka waa inay ka shaqeysaa insan la gaaro taas awlawiya ah waxa priority ah in qarannimada la sugo qarannimada si loo sugo waa in dadkoo dhan maxaliyada Soomaaliyeed oo dhan ay xukuumaddaas iyagu leeyihiin markaas dhalinyaradu helaya waxaad maqlaysaan dhalinyaradii waa shaqo laayihiin iskuul ma jiraan caafimaad ma jiro nolol fiican ma jirto dadkii dhulkay beerka ku hayaan dabcan saasa jirka yaa hagaajiya waxbarashada iyo caafimaadka iyo fursadaha dhalinyarada iyo in dhalinyarada qof waliba uu sanadeer u baahan eedo u baahan wasiir iyo madaxweyne u baahan yaa hagaajiya waxa hagaajiya markay jiraan fahamkaas dawladnimada iyo maamul wanaag intuu jiro inta uu fahamkaas maqan yahay faqri baan ahaanayna waa by the way shabaab maxay u jiraan shabaab ma jireen hadii maamul wanaag jiro waxa jira wax la yiraahdo physics ka adeegsadaan physician dadkan oo physics ka shaqeeyo la yiraahdo vacuum doesn't allow waxa la nature doesn't allow vacuum marka hadii dawladnimadii meesha ka baxdo hadii maamul wanaagii meesha ka baxo waxa bedelaya maamul xumo sida daraadii waxa bedelaya qabiil iyo iyo warlord iyo argagixis marka sida shabaab looga adkaan karo dhalinyaradu fursad ku heli karaan waxbarashadu ku horumari karto caafimaadku ku horumari karo generationadu isu bedeli karaan ummadaha aan ula mid noqon karo aynaan Kenya ugu soo yaacayna aan dalkeena oo qani ah oo every opportunity ay jiri karto waxaan ku gaari karnaa waxa weeye inaan dawladnimadeena fahamno inaan maamul wanaag wuxuu yahay fahamno inaan fahamno dalka inagu inaynu leenahay inaan madaxda la xisaabtami karno markaas ayaa waxa imaanaya waxa la yiraahdo institutions ayaa ummad ku horumarta wasaarado ay ka shaqeynayaan dad aqoontooda leh oo aan lagu soo xulin qabiil iyo baalkooda laakiin ma imaan karto taas hadii aan maamul wanaag jirin maamul wanaaguna ma imaan karo hadayna fahamka
fahamka dawladnimada iyo siyaasadda iyo maamulka aysan jirin ummadaha dunida jiraana waxay ku calaamaysan yihiin hadba dawladda ay leeyihiin qofka Soomaaliga ay sidiisa u fiican yahay Soomaalidu markay Mareykanka tagaan horumar bay sameeyaan Kenya markay joogaan horumar bay sameeyaan South Africa markay tagaan horumar bay sameeyaan waxaan ku gabagabeynaa markaan wasiirka ah waxaan tagnay على مسارك مدحوينها محلي هذا مدحوينها اللي السعودي وقت قال فرماجة مدحوينها وحن تقني ساوث أفريقيا مدحوينها ساوث أفريقيا هذا الجوجة وحلي هذا رامفوسا وحول هاي سليمان ديك سوماليات وقلت الله مذوق ساوث أفريقيا كان مذوق يجي وحبوها قبس الله سوماليدنا قفا نقدي إمام إيمانية ساوث أفريقيا waxaa arkaysa soo dukaan furtay oo business sameeyay oo horumar sameeyay say isugu talaal qofka Soomaaliga marka shakhsiyadiisu waa fiican tahay meeshuu tago horumar ka keena dalkiina waa ku dayacan yahay wuxuu ugu dayacan yahay dalkii waxa ka maqan dawladnimo iyo maamul wanaag baa ka maqan Kenya markay yimaadaan Soomaalidu iyaga businesskii la wareegay moolkaan ay dhisteen ya Soomaaliga kama dhisan karaan waa isla Soomaaligi xagga waxaan ka jirin dawladnimo iyo maamul wanaag Soomaalidu waxay tageen Mareykanka waxay galeen baarlamaanka maxalliga Congress-ka waxay noqdeen Canada wasiir ka noqdeen waxay noqdeen maxalliga baarlamaanka ama golayaasha sharci dejinta oo Minnesota ka mid noqdeen iyo kuwa Oregon iyo kuwa Maine iyo meel lamida waa isla Soomaalidii East Africa from Kenya to Zambia to Tanzania shidaalka waxa geeyay transportation-ka dad Soomaaliyeed oo business ku madaxweynaha South Sudan baa sidoo kale inta ku gabagabeeyay wuxuu leeyahay Salva Kiir baa leeyahay isagana waa u tagnay iyaga dhexdhexaadinayeen wuxuu yiri hadii aysan Soomaali ahaan lahayn dagaalkii sokeeye oo South Sudan markay xorriyadda qaateen oo dhexdooda iska laayeen oo nin la yiraahdo Salva Kiir ko madaxweynaha qolo inaga camal aqligeeno kale leeyihiin waa dayacan yihiin oo dinka la yiraahdo markuu la dagaalinin Riyaak Mashaar la yiraahdo qolo Nuweer la yiraahdo qolada tirada labaad ku soo xigtay markay is dagaaleen wuxuu yiri hadaan Soomaali joogi lahayn waa aqal lahayn gaajo u dhiman lahayn South Sudan baa mushtarkiisa iyo daawadiisa iyo shidaalkiisa iyo kulli waxa keena Soomaaliya keenta qofka Soomaaliga ay markuu tago meel nidaam leh meel dawlad ka jirto meel maamul wanaag ka jiro meel fursad ka jirto dadka bini aadamku la mid yahay Soomaaliya markuu joogo laakiin waa dayacan yahay waa shabaab gaajo haysa cudur baa haysa waa qabiil waa iscayrsanaya markaas tahriib baduhu ku dhimanaya markaas inagu beesha waxaynu la fariisanaynaa oo qabiil baa nala haray saan qabiil laha eedaynin it has nothing to do with qabiil umadaha ugu jiro qabiil xikmaddu waxa weeye maamul xumaa jirta institutions baan jirin wax kasta waa madaxweynaha ya ma jirto wasaaradda arrimaha dibadda oo shaqeynaysa wasaaradda maaliyadda oo shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka oo shaqeynaysa male madaxweynaha saf loogu jira baarlamaanka madaxweynaha iska leh xukuumadda madaxweynaha iska leh iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo hagiisa dar ama ha joogo federaalka hadda runta isu sheegayna waxaan ogahay way ogolahay mana aha wax oo madaxweyne gaar ah ku kooban wax ku kooban federal government-gana ma gobolada ka jirta ana ogtan soo shaqeyn sidoo ahaanaysa ilaa aynu bedelo mafaahiimta oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan dawladda inay iyagu leeyihiin oo la dhiso marka institutions dadku leeyihiin oo madax banaan marka mustaqbalka Soomaaliya waa fiican yahay ummadaynu la mid noqon karaa sida aynu Kenya ugu fiicannahay Zambia ugu fiicannahay Mareykan ugu fiicannahay xagga ugu fiican hadii aynu samaysano nidaam maxalliga dawladeed oo fiican rule of law institutions shaqeynaya madaxweyne la qaban karo mushaarkii iyo wasiir mushaarkiisa ku nool aan dhahayna dawladayda wasiirkayga madaxweynaha hadda inaga inoo jooga waxaan tusaale u soo adeegsanaynaa tusaaluhu ma ogtahay si fikradda loo fahmo waa in tusaale la adeegsadaa qofkii madaxweynaha jecel madaxweynaha wax gaar ah anigu ma haysto iyo kuwa Puntland joogan ka hadla kuwa Jubaland joogan ka hadla kuwa Soomaaliya joogan ka hadla waxaan uga hadlayaa waxa weeye waxaan ogahay xogta jirta marka maadaama ay mas'uuliyiin oo yihiin waa tilmaamina tusaale u soo qaadanayna madaxweyne Xasan Sheekh marba wuxuu yiri yani fahamku meeshu joogo
heshiis baa waxa lala soo galay Turki waa dal fiican aan saaxiibadeen heshiis lala soo galay waa fiican tahay laakiin heshiiska dadka Soomaaliyeed baa iskale madaxweynaha uu ka haraya marka wuxuu yiri golaha wasiiradu inay ogaadaan looma baahna baarlamaanku inay ogaadaan looma baahna ana idin ana dawladii asaga xataa saa u fahamsan markaas baarlamaankii golihii wasiiradu waxay yiraahdeen waa run ayaguna saas u fahamsan yihiin ka waran hadii ay heshiisku yahay Soomaaliya la qarxiyo baalku sameeyo dib madaxweynuhu soo qabtay ama ay tahay madaxweynuhu maraakiib ha loo gado ka soo qaad sidoo kale Puntland Siciidan in la yiraahdo tagaya in waxa tagaya Imaaraadka baydii inuu tago maaha dawlad dal dibadeed uma tagi karo hadii aan dawladda Soomaaliyeed dawladda federaalka ay arrimaha dibadda laakiin uu tagaya heshiis wala soo galaya qaraabad isbaa la socda wasiir lama socdo qofka lama socdo markuu soo noqdana dadku ma sheegay heshiiskii wuxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh inuu ma sheegin heshiiskii hadda idinku waqtiga heshiisyadii la galay waxay ahaayeen aniga waa la iga wareystay laakiin ma ogi wax heshiiska Masar la soo galay heshiiska Turkiga la soo galay hadda heshiiska ma ogi ya madaxweynihiina ma ahi ma uu sheegin dadkiina looma sheegin heshiis la galaana waa in dadka loo sheegaa dadka iskale dawladda waxa maanta oo dhan macneynayay waa marka ilaa aynu mafaahiimtaas la nimaadno qofku ma xirra xasan sheekh maanta uu tagaya kan kale maanta uu tagaya dhaqanka siyaasadeed oo ah faham xumada ku saabsan dawladnimada iyo maamul wanaagga faham xumada ku saabsan waa inay meesha ka baxdaan hadda Soomaalidu waxay ku fahmaan mesela kelmadda nationalism waxyaabaha inuu waaliyo nationalismka waxay leedahay negative connotation iyo positive connotation nationalism hadday qabiil noqoto haddaynu maanta oo dhan meelaha la istaagno Kenya nacabnahay Ethiopia nacabnahay Masar baa nacabnahay Mareykanka nacabnahay waxay la mid tahay qabiilooyinkii iswada nabca waxa negative nationalism wuxuu Hitler sameeyay Hitler wuxuu yiri maxaa wuxuu baraad ku ahaa in shuhada waxa maqlaysaa qofkaas waa nationalist fahamka nationalismka waxa jira waxa patriotism iyo nationalismka negative-ka oo ah dadka iska qoqobaysid adduunka iska reebaysid waa qabiilka waxba kaga duwana ama waxa la qabiilaysi qabiilka ma nation qowmiyadu ma xuma qabiilkuna ma xuma laakiin waxa xun qabiilayste waxa xun qofka nationalismka isku adkeeya marka patriotism laakiin waxa weeye waa qofka jecel dalkiisa iyo dadkiisa dadka muhiim ah qofku wuxuu patriotic yahay wuxuu muwaadin fiican yahay ama sida idinku taqaaniin nationalist yahay macnaheedu sax ah hadii uu qofka walaalkiisa dalka kula nool jecel yahay maaha inuu aduu madaxweynaha jecel yahay maaha aduu qabiilkiisa jecel maaha aduu geedaha iyo badda iyo dhulka geeda badda Soomaaliya ku taala iyo juqraafigeeda iyo dhulkeeda jacaylkeedu waxba inama tarayo hadda way loo joogtaa waana ka qatanay waxa wax ku taraya inaad jeclaatid Soomaaliga kugula nool dalka waa inaad jeclaataa kan Hargeysa ku nool kan Boosaaso ku nool kan Baydhabo ku nool kan Hiiraan ku nool kan Xamar ku nool kan Jowhar ku nool kan ku nool Baraawe kan ku nool maxaa la yiraahdaa Kismaayo waxaan ka baqay hadaan magaalooyinka mid ka tago inaad moodaan inaad qaar marka iyagoo dhan ma tirin karo ma waxaan sameeyay sida daraadeed patriotism macnaheedu waxa weeye qofka jecel dadkiisa maxaa yeelay waxa Ilaahay karaameeyay waa dadka dhulka waxa loo sameeyay si dadku ay u manaafacaadsadaan inaga waxa maqlaysaa dalkii waxa maqlaysaa waxa u dhimanaynaa hal qof inuu ina ka dhinto dhulka oo dhan badda iyo dhulka iyo meesha dhulka waa inaan manaafacaadsanaa dhulka waxaan ku manaafacaadsan karaa inaan kula heshiino Mareykanka iyo Jarmalka iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Ethiopia iyo Kenya iyo kulli Kenya adduunka oo dhan baa u furan laasma dadkoodu Kenya horumarka ugu jirta waa open country way maxaa yeelay maxaa dawlad u jirtaa in dadka noloshooda la horumariyo anigu marka hadaan bad iska jeclaado iyo dhul oo raado dhulka badda ilaashanay dadkeena ay dhimanayaan oo dadkii aan dilayo oo dadkii xaqirayo oo dadkii kala qaybinayo oo gaajo iyo jir haysato baddu maxay taraysaa ya codkeeda ay dilayo iyo dabaysheeda marka waa inaan fahimtaa sameynaa marka patriotism waxa weeye qofka jecel dadka dalka kula noolo isku danta yihiin oo aysan kala maarmin Soomaali ma kala maaranto sooner or later
ayaa ogaanayna marka waxa inoo fiican dhaqsahan u ogaan lahayd intay naga daahi lahayd oo waa dambe generation kale intay yimaadaan dadka muqsibla inay maanta ogaadaan xasan sheekh Saciid Deni maxaliyada kan Hargeysa jooga Musabbixin in ay dantu ku jirto 30 sano 40 sano ka badan waa qeyrinaynay meesha joognaa dadku waa dayacayeen dhibaatada jirta waxa weeye nasiib darada jirta dadkii dayacnaaba sidaas raba kii Musabbix hoos joogay Musabbixi asoo gaaja ka hayso Musabbixi wuxuu galayaa villo nolol fiican buu haystaa isaga carruurtiisa xasan sheekh villa Soomaali ku jira Saciid Deni wuxuu ku jira waxa la villa Garowe ayaka waa leedayihiin wadankeena dadkii waa baabaasay dhulku yaal dadkii baabaasanaana kuwaas u kala hiilinayaan u kala waxayna maxay dawladnimadii maamul wanaagii noloshii bay sanogay qofka muwaadinka qofka Mareykanka ah haddii qof Mareykan meel dunida ka jirta lagu taabto dawladda Mareykanku priority bay u noqonaysaa maxay yeelay mas'uuliyadeeda ah muwaadinka muhiim marka mustaqbalkeenu wuxuu ku xiran yahay sidaan u fahamno oo dhaqankeen maxaliyada waxa la yiraahdo dawladnimada maamul wanaaga mas'uuliyadda dalka naga saaran wadaninimada ama patriotism kelmada Soomaaliya kuma heli karo maxaliyada wadanimada marka qaar kood si kharada loo adeegsadaa iyo dhul jacayl beena kelmadaha ka dheeraada la yiraahdo waxyaabaha waxa maqlaysa cadow gudaha iyo cadow dibadda qof Soomaaliya cadow ma jiro meeshu ma jiro marka cadow gudaha waliga hadii ma jiro cadow gudaha wax la yiraahdo shabaab hadaa argagixisa ka hadlaysid waa la iska qaban karaa sharciga qaban laakiin cadow qof Soomaaliya cadow ma noqon karo laakiin xukuumaddu waxa maqlaysa cadowga waagoor waxa la dhigi kacaandiid iyo dib u socod iyo waxaas waa mafaahiimta khaldan weey qofka muwaadinka dalka kula leh haduu xataa mucaarad kugu yahay waa walaalka حق بكولي أدونكنا واجاري أدونك سأ فهمي واجاري ما قريسة ترى مركي ترى أدونك مريكك نيكو حماية صومرة قلب سرايو نين حدا أولوجي هاي مريك كل بيجي ما عنده مركي حبض بقصة طوري ماذا حوينها مريكنك يا قبل الله ترتويسا أنتوا وحيل هاي الحمد لله إنه سندمانين يا ووعينا وحيل هاي العافمات كيسي إننا وحس لها اللي يلا ماركو Saciid Deni iyo farmaajo islama hadlay Saciid Deni iyo xasan sheekh islama hadlayn Musabbixi iyo madaxweynaha federaalka islama hadlayn hadda waxa maqlay gobolka kale aadan Axmedoobe iyo farmaajo islama hadlayn inaguna sidaas aan u kala safanayna anaga gaajana waan haysaa dayacna waan hayo waxa ka dhawdaas way marka Mareykankuna u horumarayaan waa la isla wada hadlaa marka dhalinyaro waxyaabaha kan waxay u baahan yihiin faham camiiq ah inaan dooda ka yeelano inaan dooda markaan ka yeel waxa maqlaysaa hogaamiyada daacada loo baahan yahay hogaamiyada daacada uma baahan hogaamiye uma baahan waxa u baahanahay dad fahamsan dalkooda iyo institutions hay'ado madax bannaan oo u shaqeeya hogaamiyada daacada waxba ina ma tari karo ya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa xataa yiri la amriyo la yiri wa amruhum shura ما قرنيس يا وشاورهم في الأمر يا يذكروا أمر شورنا واجرته أما أنتو دمعين وحسبيه دجال كبدري بيرو سميري لجيرين نمنوجي نم محمد عليه الصلاة والسلام وحي مياه كل شيء مساعدة كل النقط أنا إلى النقط هذا سان ما مرك كارك وتسني أنك تنوي إنك لك واحد كسب الحوينا ينو عافمات كيسجا أوك سياسة دارمات دودة ما أنا أوجد أنا أوجد سياسة دودة بقالها أنا موجد سياسة دارمات دودة موجد لقدي بالكل الدون كسوجر أنا موجد هذا واحد يا ما صرت أروح يدين شيء بيلاقي واحد يدين شيء بيكشر كجود وجرا مقرنيس لكن واحد كسر حوينا لو مساجد كهلا أبى سوي الدريات صار أنا هاللي واحد إنه هاللي كات الدولة لماذا كفاهم سيئين دتك الصوماليين بدن كذا إنك مدة كانت مدحونها كلية هذا مرها هدي إنه إنه فهم في عن لهالنا oo aynu maartay aynu garan lahayn mas'uuliyaddeena waxayna ka soo dhaxbixila qofkeenu mas'uuliyadda u dhiibana wuxuu noqon lahaa qof aynu inaga kadee inagu dayacanahay qof dayacan baa ina markayna aadaynin hadda kuwa tusaale u soo adeegsanaya ma ina aniga waxba kama duwana maartay dadka Soomaaliyeed oo la jooga marka iyagu waxay kuma soo degsamada kama ay soo dhicin
aad maqasho ICT waxa caadi ah inay kugu soo dhacaan software, computer, internet, communication technology, cloud computing, programming. dadka qaarna waxay ICT-da u haystaan inay tahay IT. ICT waxa laga soo gaabiyay Information and Communication Technology oo af Soomaali ahaan ku noqonayso tiknoolajiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta. ICT waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosheena maanta. Waxay horumarisaa ama naga caawisaa sidaan u shaqeyno, sidaan ula xiriirno dadka kale, sidoo kale waxay fududeysaa isgaarsiinta, madadaalada iyo helitaanka xog muhiim ah. Waxay sidoo kale dadka ka caawisaa qaybaha kala duwan ee nolosha sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo maamulka. كتبارك ICT ahaan waxaan ka shaqeynaa dhammaan noocyada kala duwan ee ICT-da. waxaan ku haynaa in ka badan 20 system oo aan ku saleynay baahiyaha ka jira wadanka. sidoo kale waxaan bixinaa adeegyo ka mid yihiin software solutions, mobile app development, web design and development, network solutions, professional emails, domain iyo hosting. ha ka reebin Tabarak ICT store oo aan macaamiisha noogu diyaarinay productyo kala duwan sida network devices, security devices oo ay ka mid yihiin CCTV camera iyo qalabkeeda oo dhameystiran, POS devices and printing papers iyo IoT surface. ugu imo Tabarak ICT solutions dhammaan noocyada kala duwan ee adeegyada ICT-da. Tabarak ICT Solutions oo xoojinaysa xalinta caqabadaha bulshada iyo inay si wanaagsan u qaadato doorkeeda tiknoolajiyada ayaa markan albaabada u furtay Tabarak ICT Store oo ah dukaan lagu iibin doono qalabka tiknoolajiyada oo dhameystiran sida network hardware, security hardware, POS device and printing papers iyo IoT surface. sidoo kale waxaan idinku diyaarinay dhammaan fiilooyinka loo isticmaalo agabka networkinka, queue management device, fingerprinting device, handheld POS printer iyo qaar kale oo badan. waxaad naga heli kartaa qalab tayo iyo damaanad leh oo aad u adeegsan karto gurigaaga ama goobtaada ganacsi. Tabarak ICT Store wuxuu ku yaalaa interlog dambe ee isgoyska Taleex, degmada Hodan, magaalada Muqdisho.